My name is the World Laughter Master, Bellagio Girma. magacayga waa mudanaha qosolka Bellagio Girma. waxaan ahay maareeyaha guud ee hay'adda qosolka dadka oo dhan ee halkan Itoobiya. waxaana noqonay dugsigii qosolka ee ugu horeeyay ee Afrika laga sameeyo. dugsigan qosolka ee maxalliga ee ugu horeeyay Afrika. waxaanu isku dayaynaa inaanu horumarino khibrad cusubna siino haweenka uurka leh. markii aan haweeneyda uurka leh aan tababar siino waan ka qosli siinaa. markii ay haweeneyda bilowdo qosolkana canuga ay sido wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaq oo wuu qoslaa wuxuuna dhoola cadaynayaa muddo 6 maalmood gudahood ah. waxaa jiro mid ka mid ah macaamiishayada badan oo dhigta mid ka mid ah dugsiyada dadka looga qosli siiyo oo la xanuunsanaya cudurka kansarka. markii uu ku soo biiray iskuulkan qosolka wuxuu sameynayay horumar weyn oo waliba wuxuu helay dhiirigelin. waxaa kobcay dhammaan caafimaadka jirkiisa iyo nafsiyadiisa. kansarow hoos u dhac murugay hoos u dhac. Go down. Cortisol, go down. Cortisol, go down. Depression, go down. 10 years back. 10 sano ka hor waxa ugu dhacay musiibo weyn. midda koobaad waxay ahayd dabna qabsaday oo sababay inaan qosli waayo oo aan dadka la hadli waayo. tan labaad waxay ahayd musiibadaad ka dhalatay. midda saddexaadna xaaskaygii oo ay dhisdartii u dhimatay anigana waa la iga helay oo waxaan noqday rajalaawe la takooray. markii dambe waxaan akhriyay 2 buug oo ka kala hadlayay cilmu nafsiga iyo farxadda qofka. markaa waxaan bilaabay inaan keligay isla qoslo. dadkuna waxay oranayeen war ma qafiiftay. marka ay dadka bilaabaan inay qoslaan si wanaagsan ayay dadka kale ula xiriiraan. waxay helaan farxad kadibna waxay helaan awood. markay awood helaanna waxay helaan hal abuur, caafimaad, fahmad badan iyo cimri dheer. Will become creative, inventive, healthy, long live.